markaa waxaynu ka rabnaa inuu diintiisa yaqaano inuu diintiisa yaqaanaa ma aha waxaad odayada iyo habraha ka maqashay iyo suuqa wixii lagu hayay dhallinyaro badan oo academic waxay meelaha ka maqmaqleen iyo waxay reeraheennii ka soo gaadheen bay diinta u haystaan markaa wuxuu isleeyahay qof waliba diinta waa taqaanaa waxba kama jiraan sida aad ugu baahan tahay science courseskaga inaad qaadato ama human scienceskaasi aad courska u galaysa u qaadato ayay diintuna u baahan tahay inaad ogaato ilaahay iyo rasuulkiisa waxay yidhaahdeen aqoonyahan badan baan weysadu ka asixin soomaalida ama salaadoodu asixin waana ceeb qof 20 sano 30 sano wax dhiganayay oo weli masaladiisu ay joogto ee weysadu iyo salaadu inay saxdo waa ceeb runtii in qofku specialization sameeya waa mar dambe laakiin aqoon ba jirta basic oo qof kastoo bini aadama loo baahan yahay inuu garto diintaadu waa inaad ku dirta aqoonta basic-ga waxaa fardan cayn kuga ah inaad garan karta in maanta cid loo daba fadhiyo masaa'ilka qaarkood may ahayn qof waliba diinta waxa kaga waajiba waa inuu gartaa maxaa ku saaran adiga haddaad reer leedahay diintu waxay reerka ka qabto dhan waa inaad taqaanaa haddaad baayac mushtarka waxa xalaashiya wax xaaraanta waa inaad taqaanaa haddaad tukanayso salaada waxa ku asaxdiya waxa kale waa inaad taqaanaa haddaad soomayso waxay kuugu asaxdiya waxa kale waa inaad waxaasi maaha cilmi cid loo daba fadhiisto waa cilmi baysigiisa oo u baahan qof waliba takhasuskiisa inuu garto marka koowaad marka labaadna halka aad ummadda ugu qunto xaaraanteeda iyo xalaasheeda waa inaad kala ogtay dhaqaalaad u baratay ummadda waa inaad garanaysaa dhaqaalaha maxaa diinta ku bannaan iyo maxaan ku bannaanayn horumarkeena iyo maxaan keenayna fiildkaaga wixii ku sugan waayo haddii kale wax xufi kari maysid wax toosin kari maysid conventional economics qura haddaad dhigato dhaqaalaha reer galbeed qura haddaad dhigato dee waxba soo kordhi kari maysid way adkaanaysaa waa inaad og tahay waxaad adigu haysatayna wuxuu yahay kii alla kuu tilmaamay wuxuu yahay waa inaad og tahay si awgeed waxaynu leenahay aqoon baynu u baahanay inaynu yeelanno weliba waan ku celinayaaye dhalintan jaamacaadka dhigata kuliyaadka aan sharciga ahayn sharciga idinka inta idinkaga waajibtay waa inaad garataan waa inaynu aqoon diimeed yeelannaa ta kale aynu baranaynana waa inaynu sugnaa aqoontaasi waa wax fiican in la helo aqoontu aad mumaarasaysaana waxay hagaajisaa inaad hadhow wax xufi karto oo qofku markuu miisaanka helay wax ku miisaamayay waxa fududaanaya markaa inuu hufi karo oo kala hagaajin karo oo kala haadin karo oo garan karo waxeeda saxaay waxeeda xun culture-ka ummadda inaad kala haadin karto oo dhaqamada waxaynu u baahanay inaynu ka guurro iyo waxaynu u baahanay inaynu ku mintidno inaynu kala garan karno intaa kadibna waxaan leenahay attitude-ka inaad dadka hogaamin karta waa inaad yeelataa qodobkaasi waa macrifo wixii ku saabsanaa qodobka labaadna waa inaad qof mawaaqif leh noqotaa qof mowqif leh hoggaanka dunida la sheegaa waa nin maalin meel ay adkayd istaagay haddaad geesi maqasho dee saacaduu la kacay waa nin isagu saacaddaa sugmay ciidanku saacaduu jabay ayuunbuu u dhabar adayga markaasaynu dhahay ninkaa hebel waa geesi geesinimadu waa saacaddaa waa mowqif qof qaatay marka waa inaynu mawaaqif yeelannaa waa inaynan imaca noqonin xagga dadku jira un qof jira hadday qayeelaan la qayeela hadday wax boobaan la booba xaggii loo socdaba qof isaga socda waa inaanu noqonin aqoontu waa inay qiimo samaysaa si awgeed waa inaynu mawaaqif yeelannaa mawaaqiftaasi waxay keensanaysaa inaynu bulshada qudwo u noqonno dad ay ku dayan karaan inaynu noqonno qodobkii ugu dambeeya aan tilmaamayna waa inaynu garannaa maxaynu cusboonaysiinaynaa sisaynu u cusboonaysiinaynaa diinta cusboonaysiinteedu waa bidca iyo dheeha sare oo laga tuuro oo la reebo intii lubbul mawduuca ahay wixii waxyiga saafiga ahaa ee xagga alle ka yimi wixii khuraafaadkaana laga reebo
diinta cusboonaysiinteedu waa taa tajribada bini aadamka cusboonaysiinteeduna waa in la ziyaadiyo wax lagu kordhiyo aqoon cusub in lagu kordhiyo waa kaasi idan waxaan diin tilmaamaya waajibka idin sugaya waa kaasi ee ma aha dhalinyarada in ka mida waxa maskaxdooda ku barogram karaysa wax baro si aad shaqo fiican u hesho gabadh qurux badan loo guursan kartid meel loo geli kartid waa hunguriintaas xooluhuba inta waa yaqaaneen intaas waa intii hunguriga ma aha in loo noolaado intii loo noolaanayo waa mabaadi'dan aynu ka warramayno raganimadu iyo ninnimada iyo gabadhnimadu waxay ku jirtaa inaad booskan qaadataan laakiin in waxbarashadiinna iyo daalkiinna oo dhammi maxaa la cunaa isugu tago maaha wax u cuntama qof bini aadama oo nool wax u cuntama maaha waa in hankeenna intaa uu ka weynaadaa oo noqdaa ummaddan saynu indho ugu noqon lahayn ummaddan saynu u bedelayaa ummad kasta cid baa beddeshay yurub inay soo guurto u soo guurto technology iyo aqoon waxa ka horeeyay enlightenment groupkii falsafatu tanwiir kuwii isku dayay in khuraafada iyo waxaan dadka cusleeyay ka radiyaan laakiin iyagu laba isku radiyeenoo diin baatilana way radiyeen khuraafo kale ay haysteenna way radiyeen adiga iyaak inaad diin saxa radido moodid enlightenmentkaagu adiga inuu yahay inaad waxyiga tuurtid innaga enlightenmentkeena waxa weeyaan khuraafada inaynu ka faydno waxyiga kaasaa enlightenmentkeena innaga waxaynu u baahanay inaynu samayno kadibna ummaddu horumar bay bilaabaysaa horumar kastana cid unbaa jaajuurka koowaad dhigta ka labaad cid saarta la waayi maayo laakiin haddii ninba nin ku halleeyo halkeenaynu fadhiyayna sala allahu calaa nabiyina muxammadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin